mid kale waxa ka dhacday isagana aqalka wuxuu yimaadaa harkii duhurka ka hor 12 ama 5 saac barqadiya waa qadeeya qadada islaanta wuxuu qadada dedeji rag baan sheekala leeyahay la qayilaayaan meesha laga buuxine dedeji qadada waysi uu yimaada xogaa qaada isagoo wata daaradu dhigtaa meel kamida waa qubaysta waa qadeeya uu baxa habeenkii dambe sodohdii baa soo hoyatay sodohdii oo joogta aqalka ayuu 12kii duhurnimo soo dhaadhacay oo dawaa yimid oo iska waran daarada islaantu harkii loo dhigay kursiga iska yara fadhida show markuu soo socday riba kor ka aragtay oo soo daba gasho wiida ah oo caleenta wadada la socotay in quudkeedii buu wataay isaguna rida iskama arko aqalkuna ardaa yaro jilicsan iyo wuxuu leeyahay albaab yaro jinkadii wax saas oo kala markuu ka soo galay albaabkii ma celinay sidiina waa soo gashay foostadii biyo ka shubtay halkan taale foosta kale halka taalan dushu ka saaray suuligii buu galo marihii buu la baxay oo qubayskii buu inu bilaabo damcay biyo ku markuu isku dhuftay ayaa ridii soo gashay oo say u ordaysay ayay afka la gashay caleentii meesha saaray islaantii baa tiri allaho yaqaadkii buu ka cunay ka celiya hal haleel bisuuli uga soo booday marada xitaa waa ilaaw isagoo qaawan buu islaantii ka horiyay deeybay tacaal markaas ay noqotay inuu dibadda u carro meeshii ka tag ilaa inta islaantu aqalka ka tageysay dib ugu ma soo noqon midna intuu suuli galay suuqaadka u cunayay dibaddu ka soo degay hargeysa waxa ka dhacay dibaddu ka soo degay xogaa sanadu dibadda ku maqnaa waa soo degay rag baa soo dhaweeyay asxaabtiisa wuxuu yiri bahalkii way hayaa aad maanu xaraaradeysna ilaa suuqa ina sii mariya inoo rujiya qaadka bahalkaas la soo qaaday waa weyn barkimooyinka leeg waa la soo raray aqalkii baa la keenay waa la fadhiistay asxaabtii saaxiibadii aqalkood wixii baa gamta laga saaray maqribka dabadiisii bay gaadhay cishii bay gaadhay suulibu u baahday marka aqalka daaradiisa aqalkan lagu casuumay ninka iska leh xaaskiisii iyo habla la dhashay iyo baa joogo oo maanta dhar intay maydheen bay daarada aqalka ku feereynayaan marihii ku qaawideynayaan suuligii bay soo garay macawis wato galay dabeetana biyo isku shumis waa kaajay ma garanayno meeshii uu saartay uu soo baxay gabdhihii buu ku soo baxay excuse me raali ahaada buu yiri waa qaawan waa loo socdo ninka dumarkii baa alla baanay afka gacanta saartay ragii buu soo galay saragii baa arkay ninkii garan kaliya gashin waa qaawan waa cirkaas u maraya waa faqaansan wariya maxaq warwaaci war macawist maxaa dhacay alla wariya waa ceeb suuliga kaga soo tagay sidii buu ku soo noqday excuse me waxa soo ilaa macawisteedii macawistu dib ugu noqday hadana mar labaad de waan daaradii lagu kala cararso ma gabdhihi u soo xid yani wax lagu qoslama wax la ajaa'ib oo mutalayaab leh iyo waxa baalkan dadka uu geysanaya qaadkan iyo mada dhibaatada uu ku sameeyay mid waxaan garanayaa anigu hadda uu jooga aabihi buu dhakhtar u qaaday dhakhtar buu aabihi u qaaday magaalooyinka magaalo ka mid u geeyay dhakhtarkii odagayso ku jira wuxuu yiri mobilkan soo charge garaysanaya barqadi uu ka soo tagay mobilkii buu charge karsaday qaadna waa qaato waa fadhiistay odaygii sakaraadkii baa isugu yimid midna yaraa buu kaga tagay miyuu dhalay odaygu musaadeer buu ahaa maqan ayuu kaga tagay odaygii waa sakaraaday waa la garaaca mobilkii meel buu ku qayilaya waa dhintay waa la mayray waa la kanfay waa la soo aasay sagaalkii habeenimo ka soo kacay isagoo findicilanaya meesha ar mobilkiisii sadaqadii uu ka charge garaysanay uu qaato dhakhtarkii uu sii daayay walaalayaal odaygii halkan jiif xagee loo qaaday dadkii waa la yaab oo maxaa odayga soo odayga ninka xal la jooga ma adan ha war odaygii waa dhinto waa la soo aasay meedkiisa la qaadi bal ka war خسر الدنيا والآخرة خسارة الدنيا آخرة كل عين كاس أبيه وذنون وإلا قصص وحلا قصوا نمان كرما وحوي مد بواحد شيء تسوق جوري هرك صاح يامي أيو دجا مدينا مد كميدا بسود دجا هرك مركز سوق يجري راشين بالدين هركنا قربع ما يستطيع راشين بالدين دوني تولدي ويمد raashinkii uu kamiisan lahaa markuu soo galay iyo qaadkii oo soo dhacay ile baalka waalana daba ordayay ayuu ku beegay waa qaati waa fadhiistay cishaayiga wuxuu xusuustay reerkii inuu raashin u soo doono markii waalkii ka booday oo kiilamiistay oo cararay oo sii daayay
reer ka sokeeya oo ay saaka wada degeen ayuu soo dul taagay markaas wuxuu isiri war islaantu way kula diraysaa ay kugu kicine gaajay la seexdeene bariiska iyo shaaha bal u bisle aqalkii kalu maamulanaya dabkii buu shitay digsigii buu saaray xilligii buu saaray isagoo wixii babinayo afuufaya ninkii aqalka lahaayo qoorta jiifa ayaa madaxa kor u qaaday war waa maxay ninka aqalka ka shaqaysanaya ninkii baa soo kay war hebel war bal waran war waa khayr aamu hoos u hadal wareerkii saakan ka tagayo iyo kugu kicin ma isla waxbaan kare warkan reerkaagi ma waa reerkaygii waka reerkaagii laakiin bal bariiska iyo shaah bal u bisle reerka gabar yar oo dhalinyaro intuu kiciiraabo bal la waxeeyo bal waxa baneeyay ku dhaash markaas waxa lagu leeyahay qaadku hadhow xaraan ma aha mandooriya ma aha dadka qaar waa laga yaabaa in la qabsadeen laakiin waxa hadii laga sheekeeyo intaan sheegay intaad haysaan baa ka badan weydina sheegeen mooyaan laakiin waxaan leenahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ha looga cabsado